uu ka jiro sariibada iyo guud ahaan xaafadda Daami kaasi oo ku aadan dhinacyada caafimaadka biyaha amniga iyo waliba horumarka waxaanay shaaca ka qaadeen in ay dayactir la'aan awgeed ay sariibadan u noqotay mid u eg meel laga geedi galay isla markaana ay ilaa hadda ku taswiran yihiin taswiirta calanka Soomaaliya oo lagu sawiray xilligii dawladii madaxweyne Siyaad Barre annaga xaafadayadu way ka tilmaaman tahay calanka Somaliland oo wali cid cagta Soomay dhigin waxa weeye calankii Soomaaliya ayaa ku xidhan albaabadayada oo ku sawiran waa aragteen indhaa u leedihiin xaafadu way ka tilmaaman tahay xaafadaha Somaliland xaafada waxa ku yaal cawarkii waxa yaala Soomaaliya waxa bad moodaa inaan xamar ka tirsanay talo ma magacan Daamiye marka horeba ay deeriyanayeen bay talo dawladuna ay nagu fiidisay oo sariibadaha iyagii iyo saldhigyadayadii iyo xanaanooyinka iyagii intiiba ay u baantadaysan suuli male biyo male xashiishka cid nagama qaado waxaan ku wari meesheeda way idinka arkay dawaayaheeda caynka waag tahay alaabtii waanu la kadeedana waxaan u nacnayba iibkeeda imika waanu walwaalaynaa marna waanu sii qaadaynaa gurigaanu geynaynaa marna waanu soo qaadaynaa subaxii xitaa riixitaankiiba imika dhibaato nagu aanu sii riixayna albaabada annagaa samaysanay markaanu yaabnay aanu xaarkii ciyaal ka dhammaan weyna aanu albaabadii annagu samaysanay dhirta annagaa iska garaacna xashiishka annagaa gurna waxaan ku wari wax naloo qabtoo dawladi noo qabataa ma jirto ribada ka jirtaa waxa weeyaan bacad dayac alaabtan ka gurno ku soo gurno waashmaan la'aan oo aan maalinkan maanta cid haddii aanu helayno waashmaan alaabta maanu gurnana maanu soo gurnay sarbada daldaloolkeeda iyo dhibaatadeeda iyo bacadkeedana waa ninkaan nala jooga arkaya way nagu dayacan tahay xashiish baa noo yaala daafadii way noo dhex taalaa caafimaad darraa naga haysataa dayacada kalena waxa weeye bilic baan ku jirnaa wax noo hareeyana ma hayno waxaan ka codsanaynaa dadweynaha iyo dawladaba in la noo hareeyo waxaan ku yiri markii halkaasnu joognaa garoonka cilada weeyaan har baan u baahanahay nadaafadu aad bay u liidataa nadaafadeedu wax xashiishka naga qaadana xataa waan weyn maalin walba waan loo silicnaa gaar baabuurtan soo barinaa war wala naga qaada lacagta qaato kale naga qaada Suldaan Abu Sufyaan oo kamid ah madax dhaqameedka ka soo jeeda xaafadani kaas oo goobjoog ka ahaa hawl maalmeedka halkan ka socda ayaa xukuumadda ku booriyay in hoos u eegto baahiyaha dhowrka ee ku gadaaman xaafadan gaar ahaan sariibada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leenahay madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirto dadkan adiga u madaxweynaha ka hooseeya haduu waxba qaban waayo kala raba inuu cadaadiyo waa adiga weeyaan annagu warami mayno sariibada daamiyada waramaysa yada hadlaysa yada qaylinaysa yada leh dawladnimadii Soomaaliland meeday yada leh calankii Soomaaliland meey annagu ma hadlayna sariibada daama hadlaysa waxa kala hadlayo halkay kaga dhagsan saldhigi ayaa hadlaya oo leh meey